waan ku fahmay ku soco marka walaal waa la kufsaday 2 jeer waliba ya waa la kufsaday walaal 2 jeer ayaa la kufsaday haye ku soco sheeg haye 2 jeer lagu kubsaday walaal haye see lagu kubsaday in adeer waa markii la kufsaday waxaan jiray aniga oo yar 5 jir ilaa 6 jir inta u dhaxeeya ayaa sug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada daawadayaal meel kastoo joogtiin waa aniga walaashin Amiira Weji heede adii igu cusub tahay ma sha Allah channelkayga subscribe ka naga hiloobin kulen heede maanta arin yaaba ayaan rabaa inaan maad aragtay asxaabta waano iyo wadaag inaan la wadaago insha Allah aan rabaa kulen maad aragtay heede wiil walaalkeenu Soomaaliyeed ayaa khadka igu jira oo doonaya inuu ka hadlo insha Allah maad aragtay dib haysata amba waano iyo wadaag inuu inaga helo waani wadaagba insha Allah marka kulen wiilka Soomaali walaalahay aad u fara badan ay ku xidhay waxaan jeclaystay dibteeda inaan idinkeeda wadaago waan awoodi waayay qof video iyo qof qalabkayga aba arinkayga walaal inaan la wadaago markaas darteed ayaan rabaa arinta inaan walaal idin wadaago walaalahayga Soomaalida ay dadkan in ay walaal si wanaagsan ila taliyaan arinta ay haysata ay tahay arin aad u weyn inay anigu saabsan tahay aan garanayn iyo inay dadka Soomaaliyeed qaarkood ay haysato aan ogeyn okay marka arinta ku haysata maxaa kamida maxaana waaye arinta ku haysata heede waxa dhici karta arinta adiga ku haysta inay wiilal badan xitaa ay haysato oo na social media-ga ay ka sheegi karin maad garatay markaas waxaan ku oran lahayn walaal maad aragtay adigoo magacaaga xitaa iri adigoo magacaaga qarinaya oo dhahay da'daadu in ay tahay 16 jira oo wali wiil yar oo dhalinyaro ubaxi heede ma sha Allah Soomaalida atahay maad aragtay amba dhalinyar tiimka soo koreysay yani atahay markaas bal noo faafi bal hadalka noo si sharax bal xoogaa in adeer mid kale aan ku weydiistay walaal maad aragtay waxaan rabay inaad meel afriisatid la'aano waa socotaa waan u maleeyaa dabayl ayaa codkaagii oo dhan qaadanaysa marka xoogaa inaad meel fariisatid si aan maad aragtay dadku ay ku maqlaan walaal hadda waan fadhiyaa laakiin meesha aan ku suganahay ayaa meel aan ku soo dheeraday family-gayga iyo asxaabtayda oo meel awood aad uga socday okay yani waan ku fahmay meel waxa okay waan ku fahmay ku soco marka walaal waa la kufsaday 2 jeer waliba ya waa la kufsaday walaal 2 jeer ayaa la kufsaday haye ku soco sheeg haye 2 jeer lagu kubsaday haye see lagu kubsaday in adeer waa markii la kufsaday waxaan jiray aniga oo yar 5 jir ilaa 6 jir inta u dhaxeeya ayaa sug maxaa dhahday 5 jir baa lagu kubsaday marka qofka ku kubsadaya waaye maad aragtay ayaana maad aragtay aad ku tuumsan tahay inuu qofkaasi ku kubsaday ayuuna yahay kolen waad garan hadii aad yar tahay maad aragtay ya walaal sug walaal ma igu ciyaaraysaa walaal warta waxaan ku sheegay ciyaar ma walaal kale ayaan kula wadaagayaa waxaan rabaa in la idila talisaan waa arin xaqiiqi oo jirta inaba ee aamineen dadku hadda saad adigu ay aamineen waalidiinteeda bay aamin dooneen hadii arintaas noqon marka walaal waxaad leedahay gabadh heede xaafadiina iniga shaqeynaysa amba ayaa ku kubsatay walaal guriga inooga shaqeyn jirtay markay guriga nooga shaqeyn jirtay waalidiintu ay guriga ka tagaan ay walaalahayga ugu weyn iskuulka aadaan codkay soo gaarsi bal waxba meesha ku dhace ya guriga markuu war nafis gali ay laga wada adeegto haye
walaal marka guriga laga wada baxo ee laga tago guriga aabana aado shaqada hooyana adeegay aagto walaalaha kuwa iga yarna ay iskuulka aadaan ayay gabadhu guriga intay hoosta ka xidhato ayay isoo qaban jirtay iyadoo toonka isoo haysa oo isa sabaysa ayay gelin jirtay maqsinka telefishinka ku daawano markaas ayay dharka iga saari jirtay say doontay ayay isticmaal maxaa tiri walaalo inta ay soo qabsato marka guriga laga wada dareero ayay igu soo xareysan jirtay qolka telefishinka markaasay dharka iga wada dhigi jirtay marka dharka iga wada dhigto ayay waxay doontay ayay iga isticmaalan jirtay kolna way jiifin jirtay kol way istaajin jirtay anigoo muriga gacana iyo xataa iyada oo qaawan waxay doontaba igu samayn jirtay way isticmaali jirtay marka waxaad leedahay gabadhii inii shaqaynaysay saad hadalka aad u dhigtay ayaa markaa aqalka cidlo ay tahay ee subaxii hooye adeega ay doonto maad aragtay amba zarimadda soo miyahayn zarimadda markay aado haadhe ayay gabadhu ay kuu yeeri jirtay xitaa adigoo dhalinyarta asxaabta xitaa yariiska la dheelaya ay kuu yeeri jirtay waa marka ma maalin kasta mise waqti may ahayd waxaa jiraysay waqtiyo subaxii marka ay noo imaadiin familku jaarku na soo siyaarto waan ka badbaadi jiray laakiinse marka gurigana lasoo ziyaaran waayo loo soo wareegi waayo guriga ay cidlo tahay ayay waxay doontay iga samaysan jirtay waxay igu raadin jirtay fursada aqalku ku bannaan yahay okay markaas waxa waaye markay maalin kaste haddii ay dad jaarka amba derisku inii yimaadiin waa ka badbaadi jirtay ahayd haddii maad aragtay sida matalan amba jimcahoo kale iyo maadaama la fadhiyo jimcihii ay cid kastaba maad aragtay ay meel ay aadin aqalka la wala fadhiyo jimcihii oo kale waa ka badbaadi jirta miyaa waa ka badbaadi jiray waqtiyadaas oo kale marka laakiin waqtiyada kale ayaa maad aragtay ay ku qasbi jirtay amba ay ku isticmaali jirtay way qasbi jirtay waxay doontay way iga samayn jirtay way isticmaali jirtay markaas marka qofkan ku isticmaalay ma gabar aqalka iniiga shaqaysa mise waa wiil aqalka iniiga shaqeeya waa gabadh guriga nooga shaqayn jirtay oo noo adeegi jirtay hataa waxaa ugu dhacay waqtiyada qaarkood in aan kaasho dhiig walaalkaadi dhiig ayaan kaasi jiray yaraateedii hataa waxa uma sheegi jirin waalidka way iga cabsin jirtay marka ay arinteeda iga dhamaysato ayay ii soo qaadan jirtay waxyaalo tombooyin wax adigu jeedal oo kale waxaas ayay iga cabsin jirtay inay igu tirayso igaraacayso haddii aan waalidka u sheego amba cabsi ii gelin jirtay anigu ma sheegi jiray waan cabsoon jiray okay waxaad tiri marmarka qaarkood yani waxa kaa iman jiray dhiig oo dhiiga guryadu kaa imanayay waan kaasi jiray dhiig ayaan kaasi jiray marka familka hooyada walaalaha aabaha cid ku taba ma jirto dhibta lagugu hayo ay naagta xaafadda iniga shaqaysa heedhe ay kugu hayso walaalow walaalo dhibta lama ogeyn anigoo kaliya ayay igu xidhnayd inaan ogeysiyo anigana way idiri jirtay waxay dhihi jirtay waa haddii aad isheegto cunto kuma siinayo waxba kuma samaynayo jirka ma kuu meedhaayi waan ku dili wax kastaan kugu samey ar isheeg iga cabsin jirtay kole sida aan doona waan fahamsanahay maad aragtay hota awlaadda qudhigooga waxaa cabsida geliso markasta waa waalidkooga weeji la'aanno maad aragtay ubadkii haddii ay waalidka la saaxiib yihiin amba waalidkii maad aragtay ay u soo dhow yihiin amba u dhowaadaan ilmihii wax kasta uu sheegi karaa laakiin maadaama waalidkii markastiba haadhe uu ka dheer yahay haadhe yakiyo xitaa wala degan haadhe ilmihii haddii wax yaroo khaladana uu galo koleyn iqaab la marinayo oo la leeyahay ceeb waxaas ku hadlin taasi baa sababtaan u maleeya koleyn waxaad u sheegi weedo cabsina ay kugu jirtay walaalo midda kalena walaal waxay dhihi jirtay car isheeg wax kasta ayay tombooyin ay soo qaadan jirtay wax jeedaloo kale oo ayay igaga cabsin jirtay mararka qaarkood kabriid bay soo qaadi jirtay dab ayaan kugu dhijinaya oo la jirtay okay aan ka gudubno
marka guriga la joogana ay waalidku joogaanna iyada cunto i siinaysay si gaar ahaaneed ayay ii xanaaneyn jirtay waxay iska dhigi jirtay naag xanaaneynayso mogtahay ayay iska dhigi jirtay ها إلى وكاش قيني ساي ها walaal استغفر الله العظيم هاي waxaan ku yiri walaal hay taan ka gudubno tan kale maxaa ku helay tan kalena waxa dhahday laba jeer ay kubsaday 16 jirna lagu kubsaday saad sheegtay da'da imika imse jir soo 16 ma jirtid hadda 16 ayaan jiraa walaal okay marka dhawaana lagu kubsaday miya adana waxa ka soo wareegtay 3 bilood haya ayaa ku kubsaday ma shaariyadii miya mise waa waxay ahayd gabadh ah oo nala deganayd oo gurigeena nala joogaysay muddo aad u badan way marka waa gabadh iga weyn muddo aad iga weyn ah ardayda ha ku tilmaami karin ma aqaan laakiin aad ayay gabadh u weyn tahay walaal sug gabadhaas ayay kubsatay arrinta igu daran waa arrinta aan maanta talada wadaagayga aan rabo ay disto maanta codkayga idii soo tabinayo Soomaaliyeed maanta waa arrintaas weeyaan marka arinta maanta kugu kaliftay inaad hadashid boo arintan baa arintii kale ka weyn miya arinteedii yaraanteedii maanta waxa iga weyn oo iga dhibaato xun arintan maanta ay qabsatay ayaa iga dhibaato weyn okay marka sidee wax u dhacaan see u jiraan waxa dhahday gabar 40 jira soo miyahayn adu intaas ayaa ku tilmaami karaa aad ayay iga weyn tahay waa xagee degan tahay ma inay shaqaysaa mise wayna guriga ayay nala degan tahay wayna adeegtaa laakiin waa familkii weeyaan oo nala degan inaga okay waa gabadh familka ka tirsan oo habeertaa dhashay Soomiya familkii ay naga tirsan tahay habaraa dhashay guriga ay nala joogtaa waa gabadh iska weynaatay oo na guursan aad u weyn marka waxa guriga noola joogtaa ay waalidkeena u dawla joogtaa guriga si ay noo gaar adeegto ay guriga ay naga tirsan weeyaan familkii waan gartay marka gabadhaasi maxaa marka ay kugu waxaysay maad aragtay maxayna dhibtay ku gaarsiisay maxaa kamid ah noo faafaafi iyadu waa way kubsatay walaal iyadu waxa ay samaysay guriga marka laga maqlay xataa aniga waxaan isla jibsanaa aniga iyo laba rag oo iga waaweyn ayaan guriga isla jibsanaa markii ay labada rag ay guriga maqan yihiin bay iska dhigtaa wax ka shaqeynaya gurigeyga maqsinkayga aan ku jiro sug inaad kuma maqlay maxaa tiri anigii markaan ku maqli waayo dadkii shacabkii daawanayna waxba kuma maqli karayaan waxaa dhahday gabadhu walaal marka guriga ay laga maqan yahay ay walaalahay iskuulga aadaan amba meel aadaan ay guriga ka maqan yihiin waxay iska dhigtaa naag guriga qolkayga ka shaqeynaysa qolkan waxa la ku deganahay anagii iyo laba rag oo walaalahay oo iga waaweyn ayaan ku deganahay marka waxay iska dhigtaa gabadh guriga ka shaqeynaysa oo dharkii kala hagaajinaysa ay iska dhigtaa marka guriga ay soo gasho madaxa ay salaaxi jirtay marka aqalka laga dhaxalo way bixi jirtay hawsheeda iska qabsan jirtay marka waxa dhacday maalmaha kamida ayaa dhacday gurigii laga wada baxay oo gurigii laga wada tagay أنا أم بحي جورجا مركا كلية أي جورجا شوكتي بنان كان آذي أصحابتي بنا سوير شوكي حاجة هاير وإصاو عدي بالكاله بيقول تري واحد جورجا أيا وحلوس مرة بين يلق بتيد وإصاو عدي يقصد حيردي كريدي أنا لعياري أنا شوكي مركا أنا ودع عدي أنا سكاها إن الدي أرن وعاش وحربته وقف دسيدي و يا مركا أصحابتي أنا وربح يميد markaan u yimid gurigii ayay jikadii ku jirtay markaas ay u tiri kaale xaga jikada ku jiray soo gal jikadii markaan soo galay ayay halka iga qabatay midi halka gurigaas ayay midi iga qabatay hay marka sug inaabtay waxa dhahday adigoo jikada ku jira oo wax dirdirsanay miya cuntiyo habaysanaya may waxay igu tiri way soo wacdo waxay igu tiri kaale alaab baa idin qabanaysaa iyo guriga oo kaligeeyay bay igu tiri way iga culus tahay kuray ayaan la ciyaarayo markaas iga yeedhay kuradii waxaan lahaa day waxay ku dalbatay ee kugu wacday walaal kulli qof waalida weeye ma qabo marka aan guriga soo galay
ayaan ku yidhi heblaayo haa jikadan joogaa soo gal bay ku tiri hay markaan jikadii soo galay iyo waxaan arkay mid ay hugiga hayso hunguriga ay gaga qabatay oo wax cadaawo hore in dhexdhexaysa may wax cadaawo iniga dhaxaysa hore may jirin ma jirin wax cadaawad ah anu wiil yar waxaan ahay tacliintiisa iyo waxbarashadiisa aad ugu mashquulsan baan ahay ma aha dadkan ma ku jiri badaha kale tacliinteeda iyo waxbarashadeeda baan aad mar walba anigu aan dul fadhiyaa ma aqaan qof colaadna ma nihin qof isma dagaalno koreedana xoogaha waqti yar ayaan la qaataa inta badanna waxaan siiyaa waxbarashadeeda hay marka mididii kugu qabatay hada adiga maxaas dhahday marka midii lagu qabtay maxay ku dhahday anigu horta marka midida igu qabatay waan naxay saayid aan naxay waan iskala garan waayay xataa waan gariirayay markaas igu tiri dabka saaran waa saliid dabka kale saaran biyo weeye way karsameen haddaad iswaasho inta midida ku geliyo ayaan saliidda macal biyaha kugu shubay way igu tiri waan naxay waxaan ku sameeyay aan garan waayay naxdintii ayaa ila sii ballaaratay waan iskala garan waayay okay marka yani waxay ku dhahday biyahaasi saliidda kulul aan kugu shubisi waxa iska dhigaysaa qof isbadbaadinaysay ayay iska dhigi rabtaa waxay adigu waxay ka wadatay qorshahayga anu ma aqoon ma ogeyn waxa aan naxdin saa'ida mooye wax kale oo igu soo kordhay ma aqaanba hay marka maxay ku dhahday samee aan joogay waxa tiri sida aan doonayo haddaad ii sameyn weydid maanta malagaagi ayaa galay waan ku dili waxaana dhihi ninkan waa ii kubsanayay wuxuu doonay iga samaysan rabay saas igu waxaynayay waxaasoo dhan balaayi iyo waxay akhrisay qofaar aan jirin ay akhrisay anigii naxdinteeda ayaa igala weynaa waxaan ay akhrinayso mididan ay wahaysay iyo waxa ay diyaarinaysay ay karinaysay iyo waxaan u geystay ayaan garan lahaa gabadhii hay markii waxay ku dhahday sidii markaas isdib bay dhahday markaasay dharkii waxba ooyn walaala ooyn nin baa tahay iska qaban kar waaye idagayso walaal hota eeg walaal waxba ooyn wiil yaroo dhalinyaro tahay waan ogahay ma aragtay dhibtaada waxa jira dad badan oo dhibtaadaas oo kale ay haysato ayaa maanta dariiq u furaysa ya adii la oran jiray ma aragtay hablo ayaa wax habla la kubsada wiilasha xitaa qudhigooga waa la kubsadaa wiilasha karaamadooda ha loo soo celiyo walaal ku soco ina waxba ooyn walaal sheedaanka iga siibtay shaarkii bay iga saartay sarwaalkii ayay iga saartay iyadoo mididii igu hayso way ka haysay waxay geysay balkii fadhiga ayay gelisay waxay doonta ayay iga samaysatay markii arinta igu dhacday marka qoftan sidee ku qasbi kartaa adigoo dareemadaadii wixii oo dhan ya caadi ma iskala ka heshiiso ya inaar baad adiguna 16 jiro waa iskaga baahan tahay ma aragtay ya walaaligta waxa dadka caykaas shaqada kumay qolkii markay gelisay way isa sabtay way isa salaxday mididii horteeda way dhigtay way isa salaxday muddo badan isa salaaxaysay gurigii wax ii imaada ma jirin wax ii soo siyaartay soo sug استغفر الله العظيم وكادي بل ولال ما استغفر الله العظيم هتا ما أركتي أرنكاغا ونحدين ياب يقصل بس كولا جرتها أرن تادو رونا كوشيغو وأرن أنكي نحي مر أيل ما إيجاتي مدي مرنا أنكو قصلي مرنا ما أركتي أن لا يابي كلين بلشدا وين لا يابي دونتا وين كو قصلي دونتا يا marka waxaad leedahay hada waa lagu kubsaday imika ma karumba walal waa la kubsaday waa xaqiiqo waa arin aan la wadaagi kar waaye dadka waaye ima rumaysanayaan hadeen arintan u sheego waxay dhahayaan waa gardarada aniga ayaa la saaray anigeegan xitaa imika kuma rumaysanay waaba yaabanahay ma aragtay laano naag nin kubsatay laakiin taas waa waxyaabo jiro weejiyo ma aragtay hadda ka hor xitaa hada waa la iga sheekeeyo ma aragtay waxa iga sheekeeyay ma aragtay wiil yar oo kale ku dhacdo laakiin bibliga maan soo agdhigin laakiin markan ma aragtay waxaan hada waxaad
waad yacni waad u adkaatay waxaad dhahday bibligaan rabaa maanta inaan ka hadlo ka soco waa inaan xaqayga run ahaantii aan bannaanka soo dhigaa wixii aniga xaq aan u leeyahay marka gabadhii waxay doonta iga samaysatay way ii salaaxday adigu waxay dantii ay kelmaddaa oran walaa ilaah waan kugu dhaariyey kelmaddaa oranin ku soco yacni adigu way ku fafaraysan undhe waxaas waa ceeb weji faraysatay way i farfaraysay say doonta way ii gashay way iga damaysatay oran kelmaddaas hawsheedii marka ay dhammaysatay kadib ayuu markay gaadhay duhur gurigii lagu soo laabtay kadib ayaan arrintii u sheegi kari waayey xataa waxay igu tiri waa ku dili adiga weli waxay igu tiri haddii xala lahaad guriga aad u sheegto amba reerka aad arrinta aad la wadaagtid waxaan dhihi isagaa ay kubsaday laabtan ayay wax isku samaysay xagaxagasho iyo ay xagatay iyadu ayay samaysatay waxay tiri haddii aad sheegto aniga de waa runoota lamaba sadaqayaba de aan kaa dhex galo lama aan uga guuray ayaa ah dhibta haba maanta guriga xabad waxaan uga guuray reerkayagii ayaa ah taas weeye walaal markaas arrintii marka dhibta dhan aan uga guuri rabo guriga ayaa ah haddii aan la wadaago aabbo iyo hooyo arrintaasi waxaa loo arkayaa in anu khaladkii aan leeyahay oo la odhanaya khaladka adiga ayaa loo khaladka aniga lay saaraayo ayaa okay marka hooyo aabbo khaladka hooyo aabbo khaladka maxay kuu saarayaan calaashaan waxay iyadu waxay dhahday waxay iska dhigay yacni in adigu kubsatay waxay matalaysaa reer ku matalaysaa in ay gurigii in laga saari rabo ninkani uu ii maleegayo qorsho uu kubsaday ayay dhahaysaa reerkii waxay u matalaysaa weji wanaag iyo waxbay de samayn rabtaa sax waana qof weyn aniga lama waana qof aad u weyn oo na ka la oran karin xataa maskaxda dhihi mayso qofkan ayaa ku kubsaday wax aqli gal ah maaha dadku run ahaantii waxa indhahooda ku arkaan unbay ilkahooda gooyaan ayay dhaxaan marka aniga ma aaminayaan gabadhan ayaa ay kubsatay waa runta lagumaba aamino xitaa anigaygan maad aragtay maanta aan kaa dhex galo anigaygan xitaa haddii aad dhahdid maad aragtay gabar ay waxaan dhahay leesh isagaa kubsadaa lagu dhihi waxaas sijin baa lagugu gelin xitaa oo lagugu xiri ku soco inaad iraa ooyin waxbaa ooyni nin baad tahay adkayso halo inakuu ooyayaa walaal halo walaal kor codkaaga u qaada ooyin walaal wiil maad aragtay wiilaloo dhaleeraa tahay maxasey wax u dhaceen ka soco hadal balhay codkaaga ma maqlay walaal xarkaha dhigaha malaha xarkaha dhigaha kaa xumaada miyaa soco waan ku maqlayaa hadda haa ku soco haye waxay markaasi tiri reerka aniga ayaa been u maleegi waxaan doonka odhan anay amarkayga qaadanaya anay hadalkayga aaminayaan ada hadalkaaga ma lagu aaminayey waxaad doonto haddii aad tidhaahdo adigu ma lagu aaminayey markay dhibaatadaas ii geysatay gabadhay waxaan go-aan keligii aan qaatay in aan iskaga guuro xaafadayadii oon tago guriga aabbahay walaalkii oo isagana naga fog oo meel aad nooga fog ay tahay ayaa qorshahayga aan ku samaystay inaan aado maadaama aniga wixii ay dhibaatadan ay mar walba isugi doonto oon yaraanteedii soo arkay haddana tukalo aniga oo aqligayga hadda miyirkaygu joogo haddana awoodi kari maayo marka waxaan samaystay in aan iska guuro ayaan go-aankii qaatay waxaan ku tashaday inaan iska guuro maadaama hadalkayga aniga la aqbalaynin oo iyada hadalkayga la tixgelinayo inkasta ay tahay qof ruux dumara oo aad u weyn oona laga suuroobi karin in ay waxaan samayso amba aqliga bini aadanka ayna geli karin haddii af ahaan laga sheego marka aqalka waad ka guurtay iyada madaxeegaa uga guurtana iyo dhibteeda ayaan uga guuray iyo kursiga ay wado iyo dilkan iyo hanjabaadan ee mar kasta ay maalinkaas oo dhan ay igu hanjabaysay ayaan ka cabsaday nafteyda inay halis gelisho haddii aan diido waan ka guuray waxaan u guuray aqalka adeerkay halkaas ayaan muddo aan u sheegay aabba inaan halkaa u guurayo waxbarashada xaggaas aan iskuol brifada aan kaga biiraayo oo halkaa iga dhow markaasaa darteed ayaan uga guuray gurigii aabbana aan ula heshiiyey reerkii hooyada aan u sheegay
kadib adeerana sidiis ayaan ugu guuray markii arrintii ka soo wareegtay muddo 3 bilood ayay soo wacday waxay tiri uur ayaan ku leeyahay ana uur cankeeya uur ayaan ku leeyahay ayay tiri haye maxaa markaas marka ay tiri uur ayaan ku leeyahay ayaan kala garashadiiba iga tagtay waan gaaray fikir saa'ida muddo badan ayaa fikirayay arrintan kugu qabsatay kufsiga waxaaba iga daray weliba uur ayaan ku leeyahay ayay tiri waa arrintii madaxayga geli weydey in aan naftaba aan iskaga qaado ceeb daraaddeed aan adduunkaba iskaga tegay ayaan rabay alxamdulilah ilaahay waxay waafajiyey xaqa mar walbana ilaahay ayaan duca weydiisan jiray oon baryi jiray marka arrintii reerkayga haddaan u sheeg markay ku dhahdo uur baan leeyahay aniga ayaa marka iyadoo ay ku dhahdo uur baan leeyahay maad ugu jawaabtay oo tiraahdaa uurka qofkii aad u lahayd orod doono mise maxay ku dhahday yaa waa arrin la yaaba halo ها waxaan ku dhahay ma dhahdida uurka ayaa ku yeelay bilow naagtu waxa iska dhici kartay inay dhulkaas maad aragtay ay kabara ku kubsan jirtay inna ilaa wayna raajicuun habla saayo inna ilaa wayna raajicuun wallahi maad aragtay waa arrin fool xun wiilkeer ku dhacday wiilkeer ee Soomaaliyeed maad aragtay saa u jeedin waad arkaysiin uu ooyaa xitaa maad aragtay kuleen khadkii ka maqan subal waan ku celin doonaa wiilka maad aragteen waa arrin la yaaba aad iyo aad hada kuleen inii taabanaysa weji maad aragteen subhanallah subhanaka alcadiim inna ilaa wayna raajicuun waa arrin mucjiso ah weji arrinkaasoo kale hada waa wax fool xumo siyaada ah weji wiilkii maxaa helay kuleen maad aragtay ma khadkii ka go'ay ma muu cabsaday maxaa kuleen maad aragtay wiilka yari wuxuu inaga rabaa maad aragtay wanaag iyo waanu ayuu inaga rabaa wiilka yar dhibaataysan maanta hade dibtiisii banaanka uu soo dhigay wuxuu dhahay gabadhii i kubsatay ayaa uur ii yeelatay marka waxaan sameeyna ma aqaana buu dhahay gabadhiina waxay diyaar ay taagan tahay inay familkoogii xitaa amba ay u sheegayso amba ay la hadlayso amba ay oranayso maad aragtay wiilkiina ayaa hade sidaas ii galay koleen waxaan jeclaan lahaa isagoo inta kale hade adeegihiina aad ku maqashiin oo ini dhameystira ayaan jeclaan lahaa halo okay soo yara gabagabe insha Allah maad aragtay maxaad dhahday adigoo gabadhi markay ku soo wacday waxay ku dhahday uuraan ku leeyahay haye uuraan ku leeyahay ku dhahday uuraan ku leeyahay ku dhahday gabadhi miya ya kole khadka ka xun maad aragtay gabadhi sidoo sheegay heeda uuraan ku leeyahay ayay dhahday markaas maxaa ku malaa imika walaalow huno wiil Soomaaliyeed aboowe halo inaka maxaa helay ina adeer maal uu kubsaday adana waxa ku dhacay la ilaaha illa anta raajicuun hello استغفر الله العظيم إلهي دم داو وأنا نحن مودينا لو كوبصة عندنا كوسع هلو شكل هذا وشكل يا ما أعرف بوشوين تاني مركي أي سوق قاعد لقى يا بدونا ويشي يا كوبصة قاسرك بدن ضاحت الله إن الله كوبصة دو عندنا واد راح يستاهل قارن ينادرو
inaad haddaan amiir ahay anu maad aragtay marmarka qaarkood kaftanka hadallada waan ku daraa iyadiyo xitaa naxdina maad aragtay laakiin ragga qaarkood maanta waxaas oranayaan maad aragtay ninkan januuba galay baa la isleeyahay yaa inaadeer ها رجع قاركود واحد هاي أم بني كنيسة جابا شنو قلا يا أو ما شاء الله الله كوبصة با رج بدن بابا لا بدنا كوبصة كلين كوسع ما هايم ككوم على أور بابا لقولي هي أور كوبسي كل شيء إنا إلا وإنا راجعون كوسع ها ما هايم ككوم على قبل أور بقول هذا هاي ما هاي ما كله هنا يا إنادر بوريا دون ما إسكت جوي سيدا مركز waxay tiri hadii هاي hadii suurtagal hadii ma qult هو iska jiri hadii la jaraayo والله dariiqa ku banaa waa dariiqa ina bahal ka dhanba iska jirtido ma aragtay markay dhahdo uuran leeyahay ma aragtay aad tustid xaafadoo tiraad baalkoon iska gooyay hay hello iminka maxay gabadhii ku tir hadal iyo dhamaanteed khadkiya ka xunay hadal iyo dhamaanteed gabadhii maxay ku dhahday كل خلط كده قف كيس كله وحاله قرن وعادية هاي مركز حقيقة مريكين ما كده مركون بحال نور ده رجوا بين حال هين ولا كف ولا كف وارون حق والده هو تاق ويلين رجوا بلا أنتي ماذا رجعت ولا إمك ولا جم الصحة لكن وين أديب حقه وجرج لو سعودية كلين عدالة بعضو باهن تهاي ويل كاير اللي حيتو من شركة عدالة بوبان هاي خدك كاعصل هذا وارون ملاكين وحن أمد الصوماليات كوي ديننا عدالة بعضو باهن تهاي إنا ما أركتي لغو سرقع أو عدالة هذا لغو سوردو أو ما أركتي waxaa kuugu daran horta tan 16 jirka kuugu daran shaqeeyada iska wadaayo shaqeeyadu war ma ka haysaa marka ay ma aqaan ma garanayo ma aqaan umalihi hay marka taniimku maxay ku leedahay uuran ku leeyahay waxay rabtaa tan kale waxay rabtaa adigoo kubsa aade iyadoo ku kubsatay in adana ilmihii kubsi ay ku dhasho ay ilmihii la dhawna dhaadid aabo hadda iminka khadka markayga cuslaaday iyada ayay soo wacday waxay khadka marka intaan ka maqnaa iyada ayay soo wacday telefoon caadi iga soo wacday waxay igu dhahday uurkii 3 bilood waayay uu soo baxay tasho hadda waxaa ku tasho waxay doontay iska leedahay kuur ama diido ka tiraada aniga maaha uurkan inaad ara ooy naagta codka nooga soo duub waxaad yaali haade kulleen hadhow toolan ku sheegi bahal baa jirto codka laga duubo naagta codka nooga soo duub maad aragtay yadiyo maad aragtay adiguna waxaad dhahdaa maad aragtay soo adii ma kubsan waxyaabaha ka dhay ya maad aragtay markaas way fiican tahay si baalaha bulshada aan soo dhigno oo naagtaas maad aragtay lagaaga qabto ha naagta ha sidaan yeelaynaa ما أركت عد كصدوب يد واحد هذا ولا لا أنا جمان كقصبي أديك أي قصبي أنا إن مهن ملهي وحاس كده عد كنت كدوبتي هذا عدين وين هاي ستها ما أركتي ملاكين مذا جرتو إن مهن دي جاي وبدنا نقنع مركا واحد نقنع ساين مهنا إنا إسكقات تدي ولا لا يا اللي حتى من جرنا واته والله وحتى وبحي مك سوكعي أو لا وواحد لان وحنا reerka u sheeg inaad dhibaatada aad u geysatay inaad meherkayga qasabka oo golo leedahay waxay tirifta aragto ay guursadayso weliba haddii kale dhibaatada inaad adigu geysataa sheegi inay sheekadii ku sitahay sheegi waa ku khashafi way leedahay okay yani haddii aad guursan weydo waxay dhahaysaa inaa adigu akubsatay ay sheekada qarinaysay ayay dhihi doontaa
كلين دا وضيال صادو أكتين ما أركتي ويلكي يرا أنا أركتي إن شاء الله وحن ده دونا أنا ما أركتي وحنا دهينا إنه ناقطع عضنا قصة دوبة أن بالها بوشة أنصار دقنا أن ناقطع كخبرنا مركا ويل كاير واللي حتمنشر وويل كينيو كلوجي عدالة بأبانية هاي هو هذا هو ليه أبو ليه تلبو ليه ويل كاير ناق ما أركتي قبر فاميلي أيه ولي بقى فرتنشرة ما أركت على ركلة ميرات سترجع كلمة أركت هبلها يرى نقن فولا يا حمينا يا إنا لله ميرات ستو ناكتاسي يا إنك يا راي حافظة أي كتصان نقطة أي رات ست ولي ولا فاميل كأي هايين أي ولي مسكين كيان ما أركتي سوق شنشرنا شاقية دي أي كبستي ما أركتي أنبا أي كبستي إنا لله وإنا أولاد بدنا تويتشران عين كاسية ما أركتي هبلها إني شقية هلقة إلالي أولاد هبلها إني شقية هذا وطلوي كير ما توحو بنانك وحكست أصور لجي وحو ده دتك الصومالية ده دباتيسن هذا أولاد دباتيسن إن لو جرمدو هبلها شقالها هذا كإلالي أولادنا لا صاحبة أولادنا لا تشدة أولادنا وحبا أكقرينا أولادنا دلنا أولادنا حواردين وادي المدى مركزته marka هذا كلن أنيقو هذا أنت كسر قابينيا هذا وحن ليه هاي ما أركتي إن كاسي عدالة وين بوبانيه ويل كلا كبصدي هذا أي ناق تكبصتي لبنا ناقود أكبصدي مدوا مس شاقية تي شاقية دنوال دوني دونا إن شاء الله ويل كان نمبر كيسوان هيا وأنا يوداك أيو نيجا هاي كلن أنيقو ما أركت دان أميرة نهاي ما أميرة دان هاي أنيقو ما أركت وان إسكا ما أركت sheekada dhanna waan ka murugooday waan ka naxawlil ma iga timid dhanna waaba ku qosleba anu qosolkayga ma qarin karo ya maad garateen dhanna waaba la yaabo waaba la yaabantiin baynikiina dhan xitaa marka kooleen insha Allah waxaan dhahaynaa naagta inuu cod ka soo duubo oo codka baalaha bulshaweynta Soomaaliyeed aan u soo bandhigo ayaa igu balana anigana ayni leeyahay marka wiilka Faatixada loo soo maro heeda wiilka la kubsaday isagaaba bisinka yaasinka إلى دبداف كلين ما أركتي وحن كوانين دونا إنه بناك صادقو وحن إليه السدا يو نبتقليو يو أمانة الله لس بدافو channel كيغا وأميرة عدي official كسودو هموغان هناك مغنانين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته